gurigaagu waa boqortooyadaada. Erayadii caanka ku ahaa Jody Garland, There's no place like home. Ma jiro meel sida guriga oo kale, sababtoo ah waad ku kortay, qoyskaaga oo dhan halkaasi ayuu ku nool yahay. Laga yaabo inaad dhistay gurigaasi oo aad rabto inaad ka ilaaliso wixii dhib ah. Dadka qaar ayaa shucuur ahaan ku xiran guryahooda, mana doonayaan inay u guuraan meel kale. Qaarkoodna ma haystaan lacag ay ku iibsadaan guri cusub, mana doonayaan inay guuraan. Halkan waxaan ku soo koobayaa qaar ka mid ah milkiilayaashii ugu madaxa adkaa Abid dunida soo maray, kuwaasoo aan rabin inay guryahooda ku iibiyaan sababo kala duwan awgood. Milkiilaha Washington House, Mr. Austin Springs, oo gurigiisa ku yaalay Washington DC sanadii 1980 ayaa diiday inuu ku iibiyo gurigiisa $2 milyan. Markii dambese waxa uu ku iibiyay $750,000, waxa uuna khasaaray $1,250,000. Geeskii yaraa ee malaayiinta doolar lagu iibsaday, magacaasi ayuu bacaan ku yahay oo xitaa haddii aad Google ku qorto $1 million corner wuu kuu soo baxayaa. Haddaba aan guda galno sheekadan. Qayb ama gees ka mid ah dhismaha weyn ee ku yaala bartamaha magaalada New York ayaa waxaa iibsaday Roberto H. Smith sanadii 1900, waxa uuna ku iibsaday $375,000 oo u dhiganta $11 milyan sanadka 2020, taasoo noqotay rikoor ilaa iyo haatan cid jabisa aysan jirin ama cid ku iibsatay qayb ka mid ah intaasi oo lacag ah. Sababta geeska yar uu intaasi lacag ugu iibsaday ayaa ahayd xasidnimo iyo inuu ka hor istaago dukaanka weyn ee Macy inuu noqdo kan ugu weyn adduunka, oo wuxuu u maleynayay in dukaanka Macy oo dhismaha qayb ka mid ah deganaa inuu qaybtaasi ku darsan doono, sidaasna uu noqon doono kan ugu weyn adduunka. Balse dukaanka Macy ma uusan u soconin salbalaarsi ama inuu qayb ku darsado, waxaana ugu dhisnaa agagaarka dhismaha qayb laga soo saaro boorsooyinka lagaga adeegto dukaanka Macy. Balse ninkaasi markuu ka sheekeeyay sababta intaasi oo lacag ugu bixiyay qaybtaasi yar, ayuu dukaanka Macy ku dhawaaqay inuu yahay dukaankii ugu weynaa adduunka, taasoo loo arkay ninkii ahaa Roberto Smith khasaaro weyn inay ku tahay Lua Bojan iyo Doug Farmer. Qoyskan ayaa la weydiistay inay ka guuraan gurigoodii dumay ee burburay si loogu sameeyo waddo weyn, laakiin waxay rumaysnaayeen in dowladdu aysan siinin magdhow ku filan oo cadaalad ah, wayna ka joogsadeen oo ay iska diideen. Kadibna jid ayaa hareerahooda laga dhisay, balse dhowr bilood kadib way ogolaadeen, waxayna qaateen magdhow dhan $260 oo u dhiganta $41,000. Gurigii moolka ka ag dhisnaa sanadii 2006, haweeney lagu magacaabo Edith Mazeville oo 84 jir ah ayaa ciwaanada caalamka qabsatay kadib markii ay diiday $1 milyan oo ay ka heshay shirkad si ay gurigeeda ugu dhistaan xarun cusub oo lagu tukaamaysto oo la yiraahdo Blood Blacks oo ku taala xaafadda Blair ee magaalada Seattle ee gobolka Washington. Dadka intooda badani waxay u arkeen Mazeville inay ahayd geesi, sidoo kale qof u istaagay horumarka iyo isbeddelka. Laakiin runta ayaa ah way da'weyneed oo weliba way xanuunsanayd, mana rabin inay guurto. Guriga waxa uu dhisnaa 108 sano, halkaas ayay ku dhalatay kuna kortay. Dhisme 5 dabaq ah ayaa laga dhisay hareeraha gurigeeda, balse gurigeeda yar waxa uu u muuqday meel dalxiis ah, dadka ayaa u daawasho tagi jiray. 2 sano kadib haweeneydii way dhimatay, gurigana waxay ugu tagtay Barry Martin oo ah kormeeraha dhismaha ee mashruuca, oo noqday saaxiibkeeda iyo daryeelaha kaliya maadaama wax caruur ama ehel u dhow aysan jirin. Waxayna kula dardaarantay inuu guriga ku iibiyo qiimaha ugu sareeya, wuuna sameeyay sanadii 2009, balse lacagtii $2 milyan ee lagu diiday 3 sano ka hor inta aysan haweeneydaasi dhiman ayaan laga helin. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah milkiilayaashii ugu madaxa adkaa ee Abid dunida soo maray.